Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaha meel walba aad joogtiin soo dhowaada. Waa walaalkiin Shakuur iyo video cusub. Taariikhdu maanta waxay noo tahay bisha afaraad tobankeeda 2023. Wiigana wuxuu noo yahay wiigii 15aad. Waxaan isla eegi doonaa insha Allah wiigii lasoo dhaafay uu ahaa wiigii 14aad. Xaaladda suuqa sida ahayd dhanka stock marketka iyo cryptocurrency-ba iyo wiigii 15aad iyo waxyaalaha la sugaya mise la filayo in wiigani u dhaco. Kolley waxaan rajaynayaa in uu idin cajabin doono barnaamijkan aan soo diyaariyey. Soo dhowaada. Wiigii lasoo dhaafay suuqyada stock marketka US market ama saamiyadda 11 sektor uu ka kooban yahay suuqyada US marketka waxaa hogaaminayay sektorka energy-ga. Waxaana xigay sektorka ku xigay sektorka real estate-ka iyo sektorka telecom. Sektorka energy-ga wuxuu usbuuci hadda lasoo dhaafay sameeyey profit 4.87 waa 4.87. real estate-kana wuxuu ahaa 4.38. haddaa xasuusatiin dhowr wiig ka hor video aan soo sameeyey markaan ka hadlayay suuqa stock marketka ee Mareykanka, energy-ga wuxuu ku jiray oo aan hataa isha marka maalintaas waxaan xasuustaa inaan dhahay waxaa la hilmaamsan yahay waxaa jiray hadalhayn aad u tiro badan dhanka bangiyada baa focuska uu saarnaa. Energy-ga waxa waaye markaa pressure ma saarnayn laakiin wuxuu ahaa yacni midka ugu dambeeya sektorka ugu dambeeya ahaa. Waxaan xasuustaa markaasi waxaa u malaynaya wuxuu ahaa 3-60 meelahaas minus aan caadi ahayn uu ku jiray markii laga soo tago maxaa la dhahaa bangiyada financial sector. Marka hadda energy-ga wuxuu hogaaminayaa US marketka wiigii hadda lasoo dhaafay asagaa hogaaminaya wuxuuna ku hogaaminayay 4.87. sidaad ogtihiin OPEC waa urur wadamo ku midoobay maxaa la dhahaa ishak wadamada soo saara shidaalka oo urur samaysta la dhaho ururka OPEC iyo OPEC plus waxay ku dareen wadamo kale sida Russia iyo magaciisa ururkaasi ay plus ay ku dareen oo soo saara shidaalka. Waxay go'aamiyeen wiigyada hadda lasoo dhaafay mise wiigii lasoo dhaafay in shidaalka ay maxaa la dhahaa yareeyaan shidaalka wax soo saarka yoomi inay intaas milyan oo barmiil inay yareeyaan. Marka taas waxay keentay in hadalkaasi uu affect gareeyo pricekii maxaa la dhahaa stock marketka oo haddirtaan dhaqaaq sameeyay. Sababta mar walbo supply-ga markuu yar yahay demand-ka uu badan yahay projectka qiimihiisa badnaanayo. Marka arrintaas waxay keentay marka in energy-ga uu hogaamiyo stock marketka iyo suuqyada saamiyadda ee Mareykanka ka diiwaan gashan. Marka hadda focuskeena badanaa waxaa sarnaa oo aan iisoo tabiyaa badanaa New York Exchange waqtiga la furaa iyo sektorada ka diiwaan gashan waa 11 sektor. Sektor walbana waxaa ka diiwaan gashan intaas company oo maxaa la dhahaa ii sheeg u gooni ah. Laakiin badanaa hadda waxaa soo qaataa aniga sektoryada sida ay sameeyeen ma ka hadlaya company laakiin waxaan ka hadlayaa all the sectors oo 11 sektor oo meeshaasi ka diiwaan gashan iyo sida ay sameeyeen wiigii hadda lasoo dhaafay. Marka usbuuci hadda lasoo dhaafay wuxuu aad ku leeyahay usbuuca sida chartiga ka muuqdo sida maxaa la dhahaa daatada ka muuqato usbuuc qurux badan uu ahaa oo profit badanaa ay ka sameeyeen dhanka iyo stock marketka.
marka waan fiirinaynaa daatooyinka kale aan hayno hore u sii soconayna haddii aan isla eegno BTC maantay oo isniin ah qaaq aan caadi ahayn samaysay kandal aad u qurux badan oo powerful ah oo jebiyey channelkii ay in muddo ah ku jirtay buu samaystay waxaan rajaynayaa in channelkaas mise kandalkaasi caawa uu meesha ku xirmo baf channelka waa channelkii aan ku jirnay 3 week waa channelkan 3 week gudaheeda waa waxaan ku jirnay channelkan maanta kandalka maanta furmay ilaa haddartan socdo haddartan waqtiga aniga ay ii tahay 2 saac habeenimo ay ii tahay xilliga Amsterdam kandal aad u qurux badana maanta furmay oo powerful ah oo BTC xataa gaarsiiyey hadda waxay maraysaa 29,162 marka waxaan rajaynayaa BTC powerkan ay maanta ay samaynayso in ay ku xirmato kandalkan hadduu maanta ku xirmo above channelkan waxaa hubaal leh in 31 iyo 32 aan rajaynayna in muddo ah in aan soo taabano marka waan isla ayadana waan fiirinaynaa wiigan maanta waa isniin wiigan waa wiig aad u xiiso badan sida hadda ayaan sheegnay wiig volatilitygiisa aad u badan yahay dhaqaalaha maraykanka daato aad u badan baa soo baxaya oo isha lagu haya marka waxaa taasna waa laga yaaba inay keento dhaqaaqan iyo sugitaankan la sugayo daatada soo baxayso CPI baa daatadii CPI iyo PPI dhammaan wiigaan ay soo baxayeen sidaa hadda ayaan ku aragna videoga marka waa isla eegeena koonanka waxaa jiro sameynayo ayakana lacag tradeka haddii aad mar walbo yani disciplinkaaga u fiican yahay oo mar walba tradeka reer trade aad tahay disciplinkaaga fiican yahay la socotid dhaqaaqa suuqa suuqa waa ka shaqaysan kartaa waa ka heli kartaa insha allah marka taasi waa BTC hore u sii soconaynaa haddii aad xasuusatiin videogan video ka horreeyey waxaan ka hadlay oon soo bandhigay daato ka hadlayso xaaladda sicir bararka wadamada ee caalamka ku yaalo iyo siday u kala daran yihiin marka daatadaas waxaa ka muuqatay in waddanka Argentina uu yahay waddanka ugu daran dhanka caalamka uu ahaa markaas boqolkiiba 110 meelahaas uu ahaa waan soo bandhigay wiig ka hor wiigi hadda cajalada videoga ugu dambeysa wiigi haddirtaan waa fasaxan ahaa ma soo gelin video laakiin videoga ka horeeyey haddaad xasuusatiin waxaan ka hadlay in daato laga hadlayo inflationka iyo wadamada sida ay ula tacaalayaan iyo xaaladahooda marka waddanka Argentine wuxuu ahaa waddanka ugu daran dhanka inflationka marka bishani hadda aan ku jirno April 7deeda waxaa maqaal mise xog ka soo arooriyey channelkani Jazeera la yiraahdo asagoo ka hadlaya dhanka dhaqaalaha marka arrintan uu soo tabiyey This airport in Argentina's capital is filled with homeless people. It's a snapshot of an economic crisis that's getting worse. The Buenos Aires Jorge Newbery Airport has become an unofficial shelter for people like Laura. Hay muchísima gente. Entraron más ahora. There's a lot of us sleeping here. In a few hours there'll be more. If you come at night, it's full of people. We come here because it's cold out. Here at least we can sleep. Roxana gets a government pension of about $200 a month. With an unexpected exchange rate, she often ends up with less. One local charity says the number of people without a roof over their heads has soared 30% since 2019. Si yo pago el alquiler, no como. If I pay rent, I don't eat. And if I pay for food, I'm on the street. waxay tiri maamadani haddii aan guriga ijaarkiisa bixiyo lacag aan cunto ku gato ma haystay haddii lacagtii isoo gelaysana aan cunto ku gato lacag aan ijaar ku bixiyo ma haystay
oo jidkaas baan qabanaya. Marka waa xaalad adag waxa ka jiro Argentina. Haddaa xasuusatiin, Argentina waxaa ka dhashay laacibka weyn ee Messi. Sanadkii horena wuxuu qaatay iyo waddanka waxay qaateen maxaa la dhahaa, waxay ahayd farxaddii ugu weyneed ee Argentina ay samaysay koobka adduunka after waxaan u malaynayaa Maradona Mexico markuu ku qaadanayay siddeetan iyo afartii aan u malaynaya inay ahayd markuu qaadanayay. Waa 84 mise 86 Mexico. Markaasaa ugu dambeysay Argentina oo koobka adduunka qaadatay. Hadday Qatar ku soo qaateen. Marka xaaladdii waddankana dhaqaalihii meeshaasuu marayaa. Ummaddii waxay ku nooshahay airportka. Dadkii dhan guryaha ka soo baxeen because lacagtii way bixin waayeen mise ma bixin karaan. Airportka international airportka ee caasimadda ku yaala bay waxa waaye waxay ka dhigteen hooyi oo ay qabowga uga soo xaroodaan. Marka xaaladdu way adag tahay. Hore u soconaynaa, taasina waa inflationka sicir bararka iyo waddamadii waaweynaa oo ka cabanayo xaaladda sicir bararka oo saameysay. Weegyadii lasoo dhaafay mar waxaa jirtay in aan asxaabta la wadaagay coin oo aan arkay in uu hype fiican haysto. Lilahi alxamdu coinkaasi asxaab badan baa ka faa'iideeyey. Asxaab badan baa ka faa'iidaystay. Dabadeedna asxaab baa ila soo xiriiray oo dhahay Shakuro walaalo noo soo badi coinka aad isha ku haysid ama aad trade ku sameynaysid ama investment. Marka isbuucan mise isbuucyadii hadda lasoo dhaafay 10kii beri hadda lasoo dhaafay waxaan isha ku hayay ama trade ku sameynayay coinkan la yiraahdo ICX. waa icon hadda wuxuu marayaa eber dhibic 31 senti uu marayaa waqtigan idinla hadlayo. wiigii hadda lasoo dhaafay mise isbuucyadii hadda maalmihii lasoo dhaafay dhaqaaq aad u qurux badan uu sameeyey. haddaan daily chart tagno dhaqaaqa wuxuu soo bilaabay abril kowdeeduu soo bilaabay dhaqaaqa ilaa 5teeda dhaqaaq fiican uu sameynayay. kabacdi haddana wuxuu galay nasasho. nasashadii waa sidaasay u qurux badan tahay. laakiin bahalkani waxaan ka sugayaa in uu sameeyo another profit kale oo qurux badan. trade linekii uu ka soo baxay still laakiin wuxuu ku jiraa channel. haddii aan yarayno time frameka marka ani waxay ila tahay channelkan hadduu ka soo baxo channelkani dhowr mar uu ku noqday laga celiyay ku noqday laga celiyay. hadduu channelkan ka baxo in meesha ugu dhow uu taabanayo ay tahay 39 waana 20% iyo meeshii uu ka soo noqday kow oo ahayd 48 mise 45 meelahaas. meeshaasna waxay noqonaysaa almost 45 mise 50% meelahaasay noqonaysaa. coinkan haddii aan isla fiirino supplygiisa waxa waaye available supplygiisa suuqa hadda ku jiro waa 953.9 milyan. total supplygiisana waxa waaye 963.2 milyan. xogtaasna waxaa ka soo qaadaya ama iga soo sheegaya waa CoinGecko. all time highgiisa coinkani wuxuu ahaa almost 14 meelahaasaa u malaynaya 14 ilaa 15 meelahaas waa gaaray.
waa 23 all time high 23.16 senti uu waaye marka coinka waxa waaye waa blockchain decentralized fast and secure interoperability sida daatadan ku xusan icons blockchain transmission protocol PTP enables cross-chain communication between smart contract enable blockchains. Icon is pushing for wider adoption of icon interoperability standard in the industry by supporting not only BTP but also other interoperability protocols such as IPC, were optimistic roll up and zero knowledge proofs. kaliya hal protocol ma support garaynayo oo ah BTP laakiin waxa develop lagu wadaa in uu support gareeyo protocolkan la yiraahdo IPC oo ah protocoladan haddirtan ayaamahani caanka noqday zero knowledge ama optimistic rule ups iconkan icon ICX twitterkiisa waxaa la asaasay 2017 waxaa follow garayso 190 kun qof waxaa ka mid ah asxaabta soomaalida ee communitygeena waxaa ka mid ah max oo aniga cajiib ila noqotay inuu max follow garay meeshaan baan ka salaamaya max konkan iyo gabadha iyo waxaa kaloo follow garaya hana gabadha walaasheena hana waxa waaye waxay ka mid tahay gabdhaha koneenka markuu cusub yahayba ay maxaa la dhahaa investment ku samayso marka waxaa laga yaabaa in uu ka mid yahay koneenkii ay waagii hore investment ku samaysay maasha allah hana koneenka inta ugu badan aan research ku sameeyo hana way follow garaysaa marka labaduba waan salaamaya hana iyo max haddii aan conclusion ku sameeyo coinkan kolley coinkan hadalhayntiisa labadani week oo hadda lasoo dhaafay aad baa loo hadalhayay indha yartii waxa waaye bullish bay ku yihiin marka haddaad trade sameynaysidna insha allah manage riskigaaga manage karee investmentna haddaad sameynaysidna waxaa samaysaa more research ku samee insha allah laakiin ani waxaan u malaynayaa konkan in uu meel fiican gaari doono maraan sii socdaan insha allah usbuucan hadda aan ku jirno khaasatan maalinta arbacada bisha april 12keeda waxaa soo baxaya xogta ku saabsan CPI-da inflationka mise sicir bararka waxaana la filayaa in meeshii hadda ugu dambeysay bisha hadda ugu dambeysay waxay ahayd 6 marka filashadu waa 5.2 marka filashada hadday ka hooseyso 5.2 marka suuqani wuxuu noqonayaa suuq aad u wacan oo taasna waxaa caddeyn u tahay in inflationka uu soo yaraanayo laakiin 5.2 mise 5.3 hadday noqoto that's mean still maxaa la dhahaa inflationkii sida la rajeynayo ma noqonin marka waan arkaynaa insha allah usbuucan xogta CPI-da xog kalaa jirta oo PPI-da ayadana waxaan u malaynaa jumcada inay soo baxayso usbuucan xogag badan oo soo baxayaan suuqan wuxuu u keenayaa volatility aad u badan marka xadar insha allah tradeka ha loo sameeyo kolley aniga daatadii aan hayo dhan waa soo gabagabeeyey waxaan ii rajeynayaa usbuuc aad u qurux badan insha allah waan salaamaya asalaamu calaykum